Assalaamu calaykum kusoo dhawaada casharkeena ku saabsan machine learning-ka oo ML loo soo gaabiyo. Machine learning wuxuu ka mid yahay dalada guud ee artificial intelligence-ga AI-ga. Fiidiyoyaashii hore ayaan kusoo sharxay waa maxay AI iyo waxay qabato. Laakiin maanta waxaan baranaynaa in aan sida macnaha loo barto ama aad u noqotid qof machine learning-ka yaqaana oo ku shaqeeya ama ku shaqeyn kara inuu noqdo. Machine learning-ku saa hore buu sheegay waa in computerkii ama softwarekii ama robotkii wuxuu doona ha ahaatee inaad caqli loo sameeyo. Caqli uu wax ku kala garto oo yiraahdo wax ku kala sooco ama wax ku qiyaaso ama wax ku odoroso in loo sameeyo. Marka machine learning-ka laba hab oo waaweyn ayaa loo kala qaybiyaa oo la kala dhaho supervised learning iyo unsupervised learning. Oo macnaheedu waxay yihiin oo yahay supervised waxa weeye inaad xabad xabad ugu sheegto tiraahdid waxaan baa lahaa hadda aan soo tusaale inaad tiraahdid kan waxaa la dhahaa apple oo intaad tustid kalarkiisii iyo dhadhankiisii iyo shapekiisa aad modelkii gelisid. Modelku waa algorithm ama xisaabtii kadibna beriyo kaleeto ama mar kale modelkaaga kuu dhisan intaad xabad apple soo qaadatid inaad tiraahdid computerkii kan waa maxay oo asagana ku dhihi karo oo prediction ku samayn karo kan waxaa la dhahaa apple. Marka xabad xabitaanka u baritaanka ah inaad modelkaaga u bartid waxaa la dhahaa supervised learning. Unsupervised learning kuna waxa weeye inuu computerka asagoo wixiisa kala socdo adoo aanan waxba u sheegayn. Tusaale ahaan waxaa soo rustay moos iyo tufaax iyo orange iyo liin ama orange kadibna modelkii ama algorithmkii oo nooc kala ah supervised algorithmkoodu kala duwan yihiin baa gelinaysa adoo waxba u sheegin. Kadib asaga kala soocaya wuxuu ku leeyahay qaybahan markuu soo fiiriyo kalarka iyo shapeka iyo featureska oo dhan inta uu soo fiiriyo kala soocaya wuxuu leeyahay kan waa isku group weeye ama waa isku qabiil kan kalena waa isku qabiil marka saas kugu kala saaraya. Marka unsupervised kana kaasa ayaa la dhahaa. Waxyaalo kale oo waxaa lagu kala xalistaa problem kala duwan haddii wuxuu tusaale ahaan emailada kaleeto hadda in kan aad tiraahdo emailkan waa virus iyo kan virus maaha oo kaleeto waxaa loo isticmaalaa unsupervised oo kaleeto ama adoo iska matalanba alaab baa gadaa ama waxaa rabtaa reviewga dadka oo kaleeto inaad kala saaratid ayadana supervised kaas kale ayaa u isticmaali kartaa. Laakiin unsupervised waxyaalaha machine learning-ka waaweyn ayaa loo isticmaalaa ama waxa la dhaho hadda baabuurta is wadayso kaleeto oo dee intaan oo kun oo features traffic lightkii qofkii dariiqa marayay mar roob da'ayo maruusan roob da'ayn mar ay hameen tahay mar reflection jiro waxaas oo dhan oo features oo dhan dee lama xabad xabad looma qori karo. Marka computerkii modelkii ayaa ku shubaysaa modelka asaga kala saaranaya. Marka unsupervised kana waxyaalahaas uu fiican yahay. Laakiin casharkeenan waxaan ku baranaynaa ama casharada ugu horeysa ku baranaynaa waxa la dhaho supervised-ka isaga ayaa xoogaa fudud. Aan ku bilaabo waxa u baahan tahay supervised-ku waa maxay ama dee machine learning intaada bilaabinba inaad og tahay ama iska taqaanid waxa weeye inaad data haysatid ama xog af Soomaali ama macluumaad waxa doonta ku dheh. Waxa kale oo muhiim ah inaad programming-kii luqadii computerka wax ka taqaanid noocay doontaba ha ahaatee ama ha ahaato wax la dhaho Python ka noqoto ama C+ ha noqoto ama JavaScript ama Java waxay doontaba ha noqoto inaad programming wax ka taqaanid. oo casharadii hore ayaan Python ka kale kusoo dhigo kale waa soo qaadan kartaa. Inaad basic ka taqaanid baa laga rabaa waxba hadda inaad macallin khabiir weyn ku noqotid lama rabo laakiin way ku anfacay doonaan. Waxa kale oo laga rabaa inaad algorithmka iyo xisaabaadkii oo aan xisaab u bixiyay algorithm xisaab inay tahay aanu ku turjumay waana xisaab oo algebra iyo idinka arki doona. Ayaduna waa muhiim inaad iska ogaatid inaad kuwaas u baahan tahay. Waxa kale oo aad iyo aad kula talinaya mar walba oo rabtaan inaad wax xalisaan laba waxyaalood xooga saara. Waa maxay waxa xalinaysid what iyo why iyo sababta oo xalinaysid maxay yihiin. Marka labadaas ku cad yihiin ayaad waxaa samayn kartaa waxa la yiraahdo ayaad xallin kartaa
problem kala jirta ama wax kasta oo dib aa rabtid inaa xalisid oo ka shaqaysid. Marka aan ku bilaabo casharkeenan tilaabo oo ah machine learning inta ugu badan oo la qaato waa 7 tilaabo ayaan anigu hadda kusoo koobay laakiin way ka badan karaan waana ka yaraan karaan laakiin muhiimaddu waa in 7 qodob ayaa la qabtaa qofka machine learning intuu ka shaqeeyo. Marka ugu horeysa wuxuu qabtaa waa maxay waxa xalinaysid maxay tahay su'aasha rabtid inaad ka shaqaysid iyo sababta uga shaqaynaysid. Hadda anaga daytada haysano ama casharkeenan ku baran doono waxa weeye data aan kasoo helay markabkii degay oo loo yaqaano Titanic. Waxaa dhacday in qayb in kamid ah inaad ogtihiin oo filim ku daawateen filim caan ayaa jira Titanic laga sameeyey. Titanic wuxuu ahaa markab weyn oo 1900 baa u malaynaya bilowgii qarni ka hor ku degay bad u dhaxaysa Yurub iyo Mareykanka. Dad badan oo Yurubyaan ayaa saarnaa 2000 ayay gaaraysay dadka crewga iyo dadka rakaabka marka la isku daro. Waxayna u badnaayeen dad qaxooti ah oo Yurub ka qaxaya xilligaas oo Mareykan rabay inay degaan. Marka dadan qaxooti ahayn labadaba markii asagoo wuxuu dhex sii socda ayuu wuxuu hardiyay barafka badda hoosteeda ku jira markabkii meeshas ayuu saa ugu degay. Markabkii dad badan ayaa ka badbaaday dad badanna way ku dhinteen. Dadka ku dhintay ayaa badnaa. Marka daytadaas waxaan usoo qaadanaynay daytada rabnay inaan qabanno waa intaas waxaan rabnaa inaan helno inta qof ama machine learning uu prediction noogu sameeyo ama odoristaan noogu sameeyo imise qof ayaa markabka ku dhimatay. Kadibna waxaan u barbardhigaynaa daytadii saxda ahayd oo intii qof ku dhimatay waa la hayaa waa qarinay waa la qariyay. Kadib intuu kombiyuutarku caqligiisa ku fahmay inay noolaatay iyo rikoorka saxda ahaa baa la isu fiirinayaa. Markaas waxaa meesha nooga soo baxaysa in kombiyuutarkeena 90% ama 80% ama 70% uu saxay inta qof oo markabka ku dhimatay ama inta qof oo markabka ku badbaaday. Wadkeena ama sababta ama waa maxay waxaan xalinayno waa intaas hadda casharkeenan. Sababta u xalinayno waxa weeye ama markabkan in tusaale kugu soo qaato waxa weeye inaan ku baranno machine learning-ka oo ah daytooyinka lagu bilaabo casharada ugu fudud oo dadka bilowga qaataan oo qof walbana fahmi karo featureska ama waxa ka kooban tahayna waa wax aad loo fahmi karo oo step by step oo qofka caadi aan ku cusub aysan dhib badan ku ahayn. Marka hore su'aashii iyo problemka waa xalinay daytadiina waa soo helnay. Qodobka saddexaad oo u baahan tahay waxa weeye inaad daytada soo heshid ku samaysid waxa la yiraahdo visualize inaad aragtid oo graph ahaan ama graph ahaanba badanaa dadku u arkaan oo graafka intaadan machine learning modelki aadan gelinin inaad marka hore horta waxay ka kooban tahay maxaa ka maqan maxaa ku jira waxaas inaad marka hore fiirisid baa la rabaa. Marka afraadna waxa weeye daytadiina inaan ku samayno nadiifin ama processing ama cleaning ku samayno oo wixii aanan u baahnayn aan iska saarno. Wixii daytada macluumaadka qaar waxaa dhici karta xog qaarkood inay ka maqan yihiin oo hadda matalan qof age-kiisa kale meesha ka maqan yahay ama markabku meesha ka soo baxay oo kale qayb ka maqan tahay inaan waxyaalaha maqan oo dhan ama buuxino ama ka tirtirno ayadana cleaning baa la dhahaa. Kadibna waxaa kale oo ogaataan in machine learning ama kombiyuutarku sidiisaba wuxuu ku shaqeeyaa waxa la yiraahdo numberska ayuu fahmaa. Letterskan oo kaleeto ma fahmo. Marka inaan letterska ama xuruufteeni u bedelno numbero numeric letterska numeric u bedelno. Marka shantan qodob oo hore aan ku soo taxay weli machine learning-kii maanu gelinin. Machine learning-ku waa model dhisitaanka sidii modelkii aan dhisi lahayn oo ah modelkaas oo macnihiisu lagu sheegayo yahay inaan daytadeeni gelino ama ku apply gareyno algorithm kaas oo loo yaqaano xisaab oo algebra inka arki doona. Labadaad aan ku soo gabagabeynayna casharkan oo ugu dambeyn doonta waxa weeye oo 7 in aad modelkii ama algorithm-kii aad dhistay ku samaysid waxa la yiraahdo iska hubisid evaluation ku samaysid ayadana waa wax muhiim ah. Marka machine learning-ka waxa ugu badan 80% qaata waxa weeye waxa la yiraahdo daytada inaad soo heshid kala saartid nadiifisid
modelka lagu sheegayo oo algorithmka ama supervised unsupervisedku 20% ayuu noqdaa ama 1% ka yar waxa inta waqti ugu badan waxa kaa qaadanaya waxa weeye inaad datada kala socsocdid. Talaabada koowaad stepka koowaad aan bilowna waxa weeye waa maxay waxaan rabnay inaan xalino hore baan iskugu soo sheegay inaan waxa soo helno Titanicii degay inta qof ka badbaaday inta qof ku dhimatay. Datadaas haysana inta qof markabkaas ku dhintay iyo inta ku noolaa kadibna aan u sameyno datada saxda ah oo ku fiirino. Sababta u sameynayna waxa weeye inaan ku barano oo ah practice ku sameyno mustaqbalkana uu nooga caawiyo hadaad adigu iskaa ganacsi ama arday tahay oo hadhow kaa caawiyo oo tusaale kuu noqdo. Talaabada labaad waxa weeye datadii inaan soo helno. Datadii waxaanu kasoo helay website-kan loo yaqaano kaggle.com haddaan ku dhufto halkan ayuu ku keenayaa. Datadii waa kuwan marka hore sign in baa ku sameynaysaa haddaad sign in aad ahayn registration ayaa ku sameyn emailka kaliya kaa rabaa. Kadibna datadii oo laba qaybood oo kala qaybsan ayay kala qaybiyeen train iyo test ayay kala qaybiyeen. Marka datadu waxay kala kooban tahay ilaa intaan oo column gadaal ayaa ka arki doontaa laakiin website-kan Kaggle la dhaho waa website aan horeyna fiidiyoyaashii hore ku sheegay wuxuu qabtaa waxa weeye competitionada iyo datada iyo waxyaalo badan ayaa ku jira haddaad ku dhaho ku qorto. Kaggle waxaa lagu soo bandhigaa kambaniyasha ama dowladaha waxay kusoo bandhigtaa wax la yiraahdo inay competition soo geliyaan ay dhahaan dadka qofkii ka soo shaqeeya problemkan ama soo xaliya waxaan siinaynaa jaa-iso ama price buu ku guuleysanaya hadda 1,500,000 oo kaleeto. Homeland Security America oo kaleeto waxay leeyihiin qofkii ka shaqeeya waa challenge hadda dhamaaday kan mid hadda cusub ma 3 sano ka hor buu ahaa 1,500,000 lacag yar maaha ogtahay marka qofka machine learning ku xaliya problemkan ama noqdo number 1 wuxuu ku guuleystay 1,500,000 wuxuu ku saabsanaa problemkan dadka airborada maraya in lagu sameeyo ama mashiinkan aad dhex maraysid inuu qiyaas ku sameeyo waxyaalaha wadatid oo ama wixii khatara ama wixii kale uu mashiinaynu isla markiiba soo saaro. Datadii waxaan ka soo helnay website-ka Kaggle la dhaho waxaan import ku soo samaysanay pandas speed uu soo gaabsaday pandas casharo hore ayaan ku soo baranay. Pandas waa wuxuu macnaha aad ugu fiican yahay in datada lagu kala gareeyo ama lagu kala saaro. Waa Excel ka sii powerful ka ah oo ka xoog badan aad iyo aad ayay u fiican tahay oo hadda shaqooyin badan oo dadka pandaska raadinaya yaqaan ayaa jira. Import warnings kale macnaha waxa weeye haddii kale wuxuu i tusayaa maanta oo dhan baalkan in warning uu soo saaro oo dhaho waxaan baa qaldan marka ignore igu sameey intaan idinka gudbo macno weyn hadda inii sameyn mayso laakiin waxaad tiri mayso. Datadeenii baan soo qaadanay waxay ku soo save gareystay meeshii Jupyter-kan ama Jupyter edit notebook-kan hadda igu save gareysan yahay oo desktop-ka iyo computer-kaygan oo kaleeto computer-kan desktop-kiisa isku meel ayay igu jiraan marka bd.read.csv waa qaabka loo aqriyo horey ayaan kusoo aragnay intaan oo dhan waa intii aan horey usoo baranay oo hadda run dhaho waa kan head waxa ku tusayaa 5 line ugu horeysa datadeenii laba ayay kala qaybsaneen oo website-kii Kaggle marka kasoo qaadaneen ayay laba u kala qaybsaneen. Marka training-ka iyo testi gadaal ayaan kaga sharxi doonaa sababta loo kala qaybiyey laakiin hadda waxa weeye waxaad ogaataan in training-ka uu macnaha ka kooban yahay intaan oo waxyaalood oo hadda passenger-kii markabkii dad qofka saarnaa ID numberkiisii survived 0 macnaha waa qofkii badbaaday macnaha dhintay 1 oo qofkii badbaaday. B class-kan waxa weeye meeshu dabaqadu saarnaa ama classka macnaha ma business macnaha first class second class iyo third class macnaha dabaqadii uu markabka ka saarnaa oo ahayd dad qofka ganacsada lacagta leh first class hadda diyaaradaha markaa raacsan oo kaleeto business class iyo soo kala laabo saas oo kaleeto magaca qofka rag iyo dumar wuxuu ahaa sanadkiisii
macnaha siblings waxa weeye spouses laba qof oo isqabo oo ciyaal wata imise qof bay ahaayeen ciyaal iyo waalidkood kan loo soo gaabiyey tigid nambarkii lacagtii markabka lagu raacay qolkii ku jireen oo markabka kaga jireen iyo meeshu ka soo baxay marka meeshu markabkan wuxuu ka soo baxay markii ugu horeysay aan oran ma hubo laakiin wuxuu isku soo maray markabkan wuxuu isku soo maray saddex dowladood oo Faransiiska iyo UK oo S waa Southampton C-na waa magaalo ka tirsan Faransiiska Q waa arki doontaan waxa weeye Queensland oo North Ireland ka tirsan saddexa meelood saddexa wadan buu isku maray marka saddexa testigana waa arkaa shanta line waxa ama row ugu horeysa ayadana waxaa arkaysaan inuu ka maqan yahay columnkii ahaa survive dadkii dhintay ama noolaaday inta kale waa isaga mid marka gadaal ayaa ka arki doontaa inta qof ka kooban yihiin hadda waxaan gelaynaa stepkii saddexaad datadeeni hadda waa soo qaadanay waa arkaysaan tilaabada saddexaad waa xogtii inaan daraasad ku sameyno ama visualization ku sameyno